maanta waxa aynu ka hadli doonaa xanuunka la yidhaahdo SLE, Systemic Lupus Erythematosus. SLE-gu waxa weeyaan xanuun u keeno khalkhal ku yimaada difaaca jidhka. SLE-ga ama Systemic Lupus Erythematosus waa mid systemic ah, waayo waxa uu saameeyaa ama uu dhaawac u geystaa xubno badan oo ka mida jidhka, sida maqaarka, kelyaha, wadnaha, sanbabada, iyo dhiigga, iyo sidoo kale laabatooyinka. Haddii aynu nimaadno etiology-ga ama waxa keena, etiology-gu waa unknown, lamana yaqaano waxa keena. Dadka uu ku dhici kara xanuunkana waa dad ka dhaxla waalidkooda, balse laakiin taa macnaheedu maaha qof kasta oo ka dhaxla hidaside inuu ku dhici doono, balse waxa uu ku dhacaa marka ay la kulmaan wax cariya. Waxa cariya oo ah tusaale cadceedda, iyo sidoo kale haddii ay qaataan nooc ka mida dawooyinka kuwaasoo keeni kara xanuunkan, sida quinidine, brocainamide, oo labaduba ah dawooyinka loo yaqaano antiarrhythmiticska, iyo hydralazine oo ah antihypertensive, iyo sidoo kale isoniazid oo ah dawo loo qaato tuberculoska. Risk factors ama dadka u sahlan inuu ku dhici karaana waxa weeyaan 90% wuxuu ku dhacaa dumarka. Sidoo kalena dhammaan da'aha kala duwan oo dhan uu ku dhici kara. Haddaynu nimaadno calaamadaha waxaa jira waxa la yidhaahdo diagnostic criteria oo taasoo aad ku helayso calaamadaha xanuunkan. Waxaana ugu muhiimsan 4 u horeeya walow ilaa ay 10 yihiin. Ta u horeysana waxa weeyaan waxa la yidhaahdo Miller rash oo ah haar ka soo baxda wejiga oo u eg balanbaalis. Nooca la yidhaahdo discoid rashka oo isaguna ah mid u eg sida shilinka kale u wareegsan, kaas oo ka soo muuqda maqaarka dushiisa. Nooca la yidhaahdo photosensitivity rash baa isna jira, iyo oral ulcer ama boog afeed. Diagnosis. Dhanka baadhitaanka waxaa jira 2 baadhitaan oo ugu muhiimsan walow ay jiraan baadhitaano kalena. Baadhitaanka hore waxaa la yidhaahdaa ANA, antinuclear antibody. Marka baadhitaankani waa mid 90% muujinaya xanuunkan jiritaankiisa, balse laakiin haddii uu positive yahay kama dhigna inuu xanuunkan oo keliya jidhka ka jiro. Se haddii uu negative noqdo waxay ka dhigan tahay 90% xanuunkani qofka ma hayo. Waxaa jira ka kale baadhitaan kale oo dhahdo anti double stranded DNA, laakiin kan waa mid u ah specific u ah lupuska oo khaas. Treatment. Dhanka dawada haddaynu u nimaadno xanuunkani ma laha dawo u khaasa oo lagu daweeyo, se waxaa jira dawooyin lagula tacaalo xanuunkan laguna joojiyo fiditaankiisa. Waxaana ka mid ah NSAIDs oo loo isticmaalo arthritis-ka oo keeno xanuunkani, corticosteroids oo loo isticmaalo in hoos loogu dhigo inflammation-ka ama caabuqa, immunosuppressants
iyagana waxaa loo isticmaalaa xanuunada daran ee uu keeno ku rido kelida oo la yidhaahdo xanuunkaas lupus nephritis. Hydroxychloroquine waxaa iyada si gaara loogu isticmaalaa xanuunkan uu keeno ama calaamadaha la yidhahdo discord rush.